xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday hoolka shaqalaha dawladda ee magaalada Hargeysa. xafladan oo tababar lagu soo xidhay qaar ka mid ah shaqalaha maxkamadaha kala duwan ee Soomaaliland, waxaana xafladda xidhitaanka tababarka ka soo qayb galay madax kala duwan oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha maxkamadda sare Garyaqaan Aadan Xaaji Cali, gudoomiyaha hay'adda shaqalaha dawladda, agaasimaha maxadka shaqalaha, ku-xigeenkiisa, marti sharaf kala duwan iyo dadweyne aad u tiro badan. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Mustafa Axmed Maxamuud oo ah agaasima ku-xigeenka maxadka shaqalaha, isagoo ka warbixiyay tababarkan muddadii uu socday, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sida dadku uga faa'iideysteen. waxaan sidoo kale uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali sidaas oo dadka access-ka ugu siiyay ama ugu ogolaaday inay practice gareeyaan aqoontii ay maxadka shaqalaha dawladda ku soo qaateen. annagana application-ka ama in cilmiga la dabaqo halka lagu soo bartay baa macna noo sameynaya. cilmiguna wuxuu ku fududaanaya inuu macna sameeyo oo la dabaqi karo. marka hore uu ahaa cilmi ku salaysan baahida ay tababarka u qabeen shaqalaha maxkamadaha kala duwan gobolka Maroodijeex. insha Allah kuwa qorshaysanna waxaanu ku talagalnaa sidii gobolada loo gaari lahaa. sidaanu isla eegnay Sharmarke iyo Dayba oo ka turjumaya gudoomiyuhu u xil saaray inay maxadka iyagu kala dhigreeyaan wixii tababaraya loo baahan yahay cid oo baahan yahay meelaha laga fulin. inaan qiimeyn ku sameeyno iyo kormeer xaddiga ay la eg tahay inta la isticmaalay aqoonta halka ku barateen iyo waxyaabaha inaga hortaagan inta aynaan isticmaalin si wixii ay u noqdaan wax cilmiyeysan ay u garanayaan isbeddelku uu noqdo mid aan cabiri karno. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xubin ku hadlaysay afka macallimiinta tababarka bixinaysa sida qiimaha ay training-ka ay u bixisay islamarkaana aan boodisay inay ka faahfaahinaynba Mustafa iyo Guuleed inay ka faahfaahinayaan gabadhan aad baan ku mahadcelinaynaa inkastoo aan arkayna meesha barta ay fadhido intaa laga soo gudbo macallimiintii training-ka bixinayay. waxaan aad u mahadnaqaynaa gudoomiyaha maxkamadda sare oo mar kasta u diyaar ah sidii uu tababar u samayn lahaa garsoorka iyo kaalayaasha. annaguna waxaan ballan qaadaynaa haddaanu nahay ka qaybgalayaasha in wixii nala geliyey aan dib u soo celino adigoo ka arki doona riboodka maxkamadaha adigoo ka arki doona. dhanka kale waxaa halkaasi hadallo hambalyo iyo dhiirigelin ka jeediyey gudoomiyaha hay'adda shaqalaha dawladda Farxaan Aadan Haybe, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa quality-ga adeeg ee uu bixinayo tababarada sidoo kalena la soconno performance-ka shaqada ay qabanayaan shaqaalaha dawladda waajib naga saaran yahay. labadaba naga qiimeynayna waxa kaalinta ugu weyn yeelanaya si ay feedback ugu soo celiyaan maxadka oo la yiraahdo halka ka toosi tababarada oo ka tayeeya oo laga helo dadkii tababarada ka qayb qaatay. sidoo kalena shaqada iyo adeegga qaranka loo qabanayo inaan ka qiimeyno waxdaas aan soo kordhinay waxay side by side la shaqeyn doontaa maxadka tababarada shaqaalaha oo aan doonayno tababarada guud ahaan shaqaalaha dawladda oo dhan inaan meel kale lagu qabanayo ay qabtaan. taasna waa waxaan ku soo kordhinay sanadkan insha Allah iyo sanadaha dambaba oo leeyahay institution-kaasi capacity ahaan wuxuu u baahan yahay policies-ki, procedures-ki, laws-ki, waxyaalihii kale administrative manuals-ki u baahnaa inuu ku raaco shuruucdiisa iyo nidaamka habmaamulka shaqada iyo shaqaalaha iyo adeegaba. labadaaba in la qiimeeyo dabadeedna wixii ka soo baxa qiimeyntaasi ay noqoto in lagu daro miisaaniyad in lagu ogolaado tababarada loo qoondeynayo insha Allah tacaala. taana waxaan ka wada shaqayn doonaa wasaaradaha, hay'adaha iyo maxkamadaha oo ka wada shaqaynayna biidnillahi hay'adaha dawladda oo insha Allah tacaala. geesta kale waxaa hadalka soo gabagabaya gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Garyaqaan Aadan Xaaji Cali, waxaana uu si weyn u ammaanay maxadka shaqalaha dawladda hawsha culus ee qaranka u haysta, waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. waxaa maanta halkan sharaf inoo ah inaynu ku soo xidhayno ama aynu gabagabayn doonno tababarkii idiin dhammaaday ee afartii qaybood ee agaasima ku-xigeenka maxadka shaqaaluhu inoo sheegay oo afar qaybood oo muhiim ah in halkan ilaahay inoogu soo gabagabeeyey shahaadadina la bixin doono. marka marka ugu horeysa waxaan u hambalyeynayaa tababarka aad dhamaysateen qaybihiina kala duwan ee ka tirsan hay'adii garsoorka. waxaa kaloo u mahad celinayaa maxadka shaqaalaha oo runtii iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo hay'adda shaqaalaha oo arrintan xoog iska saaray. markaynu si kooban u sheegnana ujeeddada laga leeyahay waxa weeye in tayada sare loogu qaado howlwadeenada ka shaqeeya bahda garsoorka. gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey shaqaalihii uu soo dhammaaday tababar. Axmed Maxamuud Cumar Axmed Dayax, Bulsha TV, magaalada Hargeysa.